hoteelada Mansour Sea Tourism ee dhinaca dalxiiska ayaa waxa ay qaabileen kooxdii ku guuleystay koobkii horyaalada ee dawladda hoose magaalada Burco. Kooxdan ayaa saaka goor hore waxa ay u dalxiis tageen dhinaca badda iyadoo lagu qaaday doonyaha loogu talagalay dalxiiska, isla markaasina la soo mariyay badda magaalada Berbera iyo weliba goobaha ay taagan yihiin maraakiibta kala duwan ee doonaya in ay dekada ku xidhaan. kooxdan dawladda hoose magaalada Burco ee ku guuleystay koobka horyaalada ayaa sidoo kale waxa loo sameeyay qada sharaf iyo casuumad lagu talagalay in lagu dhiirigeliyo. waxa halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay maamulaha hoteelada Mansour Sea Tourism Mustafa Cabdi Ali Geed, waxaana uu mahadnaqay kooxdan guuleysatay isagoo hambalyeeyay. waxa uu sidoo kale sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin sidii ay dhalinyarada Somaliland u dhiirigelin lahaayeen, isla markaasina ay goobaha dalxiiska u geyn lahaayeen. runtii ballanqaadkii aanu samaynay anagoo Mansour group ahaan isku dhammaystiran hawshii si wanaagsan baan runtii u fulin. haddaan Mansour Hotel Sea Tourism nahay groupkaygii Mansour teamkayagii isku dhammaa ee Mansour Group Berbera si wanaagsan bay runtii hawsha uga qayb qaateen. aad baan ugu mahadnaqayaa. runtii waxaan halkan aad uga mahadnaqayaa kooxdan dawladda hoose ku ciyaaraysa magaceega gobolka Togdheer oo runtii muujisay dadaal badan oo dheeriya. runtii sharaf bay noo tahay anagu Mansour ahaan inaanu hawsha ayada qaban qaabino, dhalinyartiina dalxiiskii doontoodina si wanaagsan aan u soo dalxiisinay, ballanqaadkii aanu sameynay. waxaan halkan aad uga mahadnaqayaa cid wal oo ka soo qayb qaadatay inuu maanta garoon xafladda noocan aan isku nimaadno gabagabadii taagan. runtii kooxdii hore laga badiyana runtii iyagana nasiib wacan baan u rajaynaynaa iyo sanadada dambe. iminkana anagana sharaf badan bay noo tahay inay hawshan isan u qabsoonto. runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa nacam sida akhlaaqda wanaagsan ee dadnimo intii aanu dalxiiska iyo nidaamka awoodnoo dhan ay kooxdu isku abaabuleysay. isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Togdheer Cabdikariim Yuusuf Cabdiraxmaan iyo sidoo kale macalinka layliya kooxda dawladda hoose ee magaalada Burco Cabdulcasiis iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Togdheer Ali Siciid oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba soo dhaweeyay xarimo sharafeedkan iyo casuumadan oo hoteelada Mansour Sea Tourism ay u sameeyeen kooxdii ku guuleysatay horyaalada. Mustafa waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baad ku mahadsan tahay. saaka dalxiis buu ku mariyay badda Berbera, maantana waa kaalin ku qadeysay kooxdii dawladda hoose Burco oo uga mahadnaqaynaa maamulahaan ama xiriir ahaan. sharaf weyn bay annaga noo tahay in kooxdii dawladda hoose ka socotay Burco inay koobkii horyaalada geysay Burco. waliba si gaar ah aniga farxad weyn bay igu tahay. waxa weeye 2 sano xiriirka jooga, sanadkii hore ilaahay naguma guuleyn, laakiin sanadkii labaad qadarta Rabbi iyo dadaalkiina aad joogtayseen waxa weeye waad geyseen. anagu waan ku garab taagnahay mar walba kulli intii aan joogno inta ayaan ka badan kooxaha gobolka. ballanqaadkii ahaa in casuumaad iyo dalxiis badda ah ay u fidinayaan kooxda ku guuleystay horyaalada intii aan horyaalku bilaamin ama nasiibka la tuurayay uu ballan qaaday inuu maanta ka soo baxay oo kooxdii ku guuleystay horyaaladana ay anagu noqotay. runtii waan uga mahadcelinayaa. ballanqaadkiina uu ka soo baxay Mustafa maamulaha guud ee Mansour Sea Tourism. runtii maanta anagoo guuleystayaashiya runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, ugu soo dalxiisnay, si wacan ugu soo faraxnay, ku soo dabaaldegnay baddiiba casuumadiina aanu markaa u fadhino. runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dhiirigelinta uu Mustafa u sameeyay 22 kooxood ee halan ku tartamayay oo toogu dambeysay ay qaada ay ahayd abaalmarinteedu in dalxiis iyo casuumad loo sameeyo maalinta ay koobka soo qaadaan. ilaahay nagu guuleeyay hayaankii dheer aynu soo galnay inaynu koobka ku guuleysano iyo waqtigii badnaa aynu soo marnay. mar walba ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa. alxamdulillaah baynu leenahay rabbil caalamiin. ilaahay baynu u mahadnaqaynaa kuman malaayiina. intaa kadib mulkiilihii hore ee hoteelada Mansour aynu u ducayno Sheekh Cabdilqaadir Allah naxariistii jannaha ka waraabiyo. waa mulkiyadii uu ka tagay baynu maanta harsanaynaa. waxaanu idiin sheegnay inaynu kalsooni ku qabno inaynu koobka soo qaadi doontaan insha Allah taala. ilaahay nagu guuleeyay baan diyaanu ku mahadinaynaa. macallinku dadaal iyo macallinkii kaalihiisa macallinka labaadba dadaal far badan iyo soo jeed badan iyo waqti badan buu tiimka galiyay. yani farxaduna waxa weeye sidii uu doonayay wax u dhacaan. waa mahad ilaahay. waxa isagana aan aad ugu amaanayaa gudoomiyaha ku-xigeenkii kooxda
iyo guddoomiyihii kooxda Mustafa oo isaguna inaga maqan waxaan leenahay dee hawshii loo socday waa guushaasi waa la gaaray laakiin inaynu halkaa ka sii wadaan hayaankiina sportis iyo guulihiina waan idin rajaynaynaa waxaan u malaynayaa dee qulubtii reer Togdheer waa kasbateene waxaan aad ugu sii amaanayaa saddexdii inan ee gurmadka ahaa qoor ya qoor naani ya naani iyo mujaahidkii weeraayay isagu muddada badan inala soo joogay Cabdixamiid Toomaska aad baan ugu amaanay iyaga yani sidaa fiicaneedii ay nala soo halgameen dhammaantii wada haliyay ahaydeen laakiin laxdada inaga soo gaadheen ayaa ahayd laxdadii loogu baahi badnaa hore ayay u ballan qaadeen hoteeladani in ay dalxiiskeen doonaan kooxda hanata koobka horyaalka horyaalada ay ku loolamayeen 22 kooxood mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera